xilliga dhalinyarinimadu waa marka uu qofku hayo waqti iyo xoog uu ku samayn karo wixii uu doono. haddaba ma ku faraxsan tahay xaaladda aad ku sugan tahay dhalinyarinimadaada? waqti ayaa kugu socdo, sanad walbana cimrigaaga waxayaa ku darsamaya. middaa ma ku baraarugsan tahay? ma waxaad joogtaa halkii aad joogtay sanadihii lasoo dhaafay, mise hore ayaad u socotaa oo isbeddel ayaad samaysay? dhammaan su'aalahani waa kuwo u baahan in qof walba uu naftiisa weydiiyo si uusan hadhow uga shalaayin waqtigii dahabiga ahaa ee dhalinyarinimo iyo wixii uu ku qarashgareeyey. nin dhalinyaro ah ayaa nala wadaagay sheeko ku saabsan noloshiisa, taasoo ah sanado badan oo uu ku lumiyey sugitaanka barnaamij uu dib uga shalaayay muddadii uu dartiis qayb ka mid a noloshiisa u lumiyey. ninkan oo magaciisa aan ku soo gaabinayo Burhaan ayaa inoo sheegay in kadib markii uu ka qalinjabiyey dugsiga sare inuu doonayay in waxbarashadiisa jaamacadeed uu ku soo qaato dibadda, balse ma uusan awoodin dhaqaalihii uu ku dhoofi lahaa jaamacaddan isaga bixin lahaa. wuxuu sheegay in adeerkii uu ka ballan qaaday inuu ka caawin doono waxbarashada dibadda ah, isagoo intaa ku daray in xilligaasi ay da'diisu ahayd 25 jir uu ilowsanaa in mas-uuliyadda noloshiisa uu isagu leeyahay. Burhaan ayaa sheegay in sanadba sanadka ka dambeeya uu adeerkii kala kulmi jiray cudurdaar ku aadan culaysyo ka haysta caawintiisa, isna uusan wax tallaaba qaadin, hadday noqon lahayd inuu aqoontiisa kororsado iyo haddii ay noqon lahayd inuu shaqaystaba. celcelisna ay qaadatay muddo 5 sano ah oo uusan waxba qabsan, balse uu ka horsugayay adeerkii. inkastoo adeerkay uusan si cad iigu oran waxba kuma qabanayo, haddana wuxuu mar kasta iigu muuqday qof doonaya inuu caawiyo. balse 5 sano kadib waxaan ogaaday in cimrigayga hore u socdo. dad badan oo aan isku xilli ahayn oo tashtay ay noloshooda horumar ka sameeyeen. aniga oo ay da'daydu tahay 30 jir ayaan qaatay mas-uuliyadda noloshayda. maanta alla mahadii 4 sano kadib waxaan dhistay nolol aan ku qanacsanahay. waxaan ahay aabbe ku filan qoyskiisa oo shaqaysta, ayuu yidhi Burhaan oo nooga warramayay 5 sano oo uu sheegay inuu ka shalaayo oo cimrigiisa ka mid ahayd. kobaca bini'aadamku wuxuu u qaybsamaa 3 marxaladood oo kala ah carruurnimo, dhalinyarinimo iyo gabow. marxalad kasta waxay u baahan tahay in loo maamulo si xilkasnimo iyo mas-uuliyad ku dheehan tahay. diinteenna islaamku waxayna faraysaa in 5 shay oo deeq rabbi aan uga faa'iidaysano si caqliyeysan. dhammaan deeqahani waa kuwo waqti leh oo aan weligood jirayn, una baahan in fursadooda looga faa'iidaysto. waxyaalaha aad inta badan ku arkayso dhallinyaradeenna waxaa ka mid ah inay aad u dayacaan waqtigooda ayagoo dhallinyarnimadooda ku lumiya wax aan faa'iido u lahayn. waddamada horumaray waxa ay horumarka ku gaareen waa inay ka faa'iidaystaan dhallinyaradooda. qofka markuu gaaro 15 sano waa inuu ogaado inuu ka baxay marxaladdii carruurnimo oo ay u bilaabatay marxaladdii ugu wanaagsaneyd noloshiisa oo ugu xooga badnaa, taasoo ah tii dhallinyarnimada. jadwalkaaga maalinlaha oo aad isbeddel ku samayso ayaa beddeli kara midkaaga sanadlaha ah. waa inaad naftaada xisaabisaa waxyaalaha aad waqtiga ku lumiso maalin kastana dul istaagtaa, maxaa yeelay waxa aad khasaarinayso waa qayb ka mid a cimrigaaga oo ah waxa ugu muhiimsan ee aan dib loo helayn. waxaa laga yaabaa inaad isleedahay dhallinyaro ayaa tahay oo weli waqti ayaad haysataa. waxaad ogaataa waqtiga aad haysato waa kan aad hadda ku dhagaysanayso warbixintan, oo haddii uu ku dhaafo aan dib kugu soo laabanayn. marxaladda dhallinyarinimo qofku wuxuu u shallaayaa marka uu gaaro marxaladda 3aad oo ah gabowga, markaa oo uu dib ka ogaanayo fursadihii uu dayacay iyo sidii ay ahayd inuu uga faa'iidaysto. ha ka cabsan inaad isbeddel samayso, iskana iloow marmarsiyo kasta oo kuu sii celinaysa halkii aad joogtay sanadihii lasoo dhaafay. naftaada adiga ayaa mas-uulka ah, halkii aad ku jahayso ayay aadaysaa. haddaba waqti dambe yuusan kaaga lumin wax aan waxtar kuu lahayn. waxaad awooddaa inaad shaqaysato oo aad noloshaada ku filnaato. qasab ma ahan inaad hesho shaqada riyadaada ah, balse waxaad bilaabi kartaa shaqo aad ku gaarto midda riyadaada halkii aad waqtigaaga ku lumin lahayd sugitaanka waxaadan hubin inay suuragal noqon doonaan. dalal badan oo dunida ah, qofka marka uu gaaro da'da 18 sano jir ayaa ugu dambaysa inuu guriga waalidkiisa ku noolaado. waxaa u bilaabata nolol isku filnaansho iyo in qofkaasi uu raadiyo shaqo uu ku dabaro noloshiisa. waana waxyaalaha ay bulshada caalamka horumarka ku gaartay, halka dalkeenna aad arkayso 20 jir iyo 30 jir weli dursaar ku ah waalidiintiisii soo gaarsiiyey da'dii ugu xooga badnaa noloshiisa. ogow wax cudurdaara ma lahan in qofku naftiisa ku filnaado. dalkeennu wuxuu leeyahay fursado badan, laakiin indheheenna ka qarsoon. ogow wax walba hoos ayay ka bilowdaan. marka aad dadaal bilowdo, si tartiib tartiib ayaad guusha ku gaaraysaa. waxbarashada lagama weynaado. haddii aadan awoodin inaad takhasus sanado qaato samayso, waxaad awooddaa inaad xirfad barato. adigoo shaqaysanaya ayaad wax baran kartaa, sidaas si lamid ah adigoo wax baranaya ayaad shaqaysan kartaa. waxaan ku soo gabagabeynayaa, waqtigu waa seef ee goo inta uusan ku gooyn. magacaygu waa Xasan Nuur. mahadsanidin.